weli waxaa sii socda duqaynta iyo weerarada Israa'iil ka wado marinka go'doonsan iyada oo 10 lagu dilay isla markaasina lagu dhaawacay 61 kale weeraradaasi. dhanka kalena dhinaca wadaxaajoodyada haddii aynu eegno ururka Xamaas ayaa waxa uu sheegay in isweydaarsiga liiska maxaabiista uu u gudbiyay dhinaca Israa'iil xilli wada hadallo aan toos ahayn ay ka socdaan magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. La taliyaha warbaahinta ee madaxa siyaasadda Xamaas Tahir al-Nuno ayaa waxa uu yiri maanta waxa la isweydaarsaday liiska maxaabiista la doonayo in la sii daayo iyada oo la raacayo shuruudihii iyo tiradii la isla ogaa. Waxa uu intaasi ku daray in wafdiga Xamaas ay muujiyeen dhiiranaan iyo mas'uuliyad si loo gaaro heshiiska madambaysa isaga oo tilmaamay in dhammaan dhinacyadu ay muujiyeen rajo iyo niyad wanaag. Wada hadallada ayaa diiradda waxay saarayaan dhamaystirka heshiiska xabad joojinta, ka qaybgalka waa ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Gaza iyo in isweydaarsiga maxaabiista si dhinacyadu ay isweydaarsadaan si loo gaaro heshiiska kama dambaysta. dhanka kalena madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim ay tahay in laga faa'iideysto fursadda si loo xaqiijiyo guusha wada hadallada ee Sharm el-Sheikh. Waxa uu sheegay inuu ku casuumay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu yimaado dalka Masar marka heshiiska xabad joojinta la gaaro si uu uga qayb galo saxiixa rasmiga ah. Geesta kalena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka codsaday Turkiga in uu ku qanciyo ururka Xamaas in ay aqbasho qorshaha nabadda ee uu soo jeediyay si loo gaaro loona soo afjaro dagaalka Gaza. Madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in intii uu ku sugnaa Azerbaijan iyo sidoo kale wada hadaladii telefoonka ee ugu dambeeyay uu la yeeshay Trump in ay ka wada hadleen xalka Falastiin. Erdogan ayaa waxa uu yiri Trump waxa uu naga codsaday in aanu la kulano Xamaas oo aanu ku qancino qorshaha nabadda. Xamaas waxa ay naga jawaabtay inay diyaar u tahay nabad iyo wada hadal taasi oo aanu arko talaabo muhiim ah ayaa yiri. Waxa uu intaasi ku daray in Xamaas ay diyaar u tahay xal nabadeed xitaa ka hor Israa'iil isagoo xusay in kooxdiisu ay weli ay joogaan Sharm el-Sheikh halkaasi oo ay si joogto ah ula xiriirayaan Xamaas si ay uga wada hadlaan mustaqbalka Falastiin. waa hagaaga daawadayaal haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo naalaaba ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan qubarada arrimaha dagaalka militariga ciidamada siyaasadda diblomaasiyadda iyo sirdoonka. sidoo kale xubintan waxaynu ku soo qaadanaa arrimaha waaweyn ee warbaahinta caalamku wax ka qorto ama ay baahiso. xubinta maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa maalintii saddexaad waxa magaalada Sharm el-Sheikh ka socda wada hadallada dadban ee u dhaxeeya Xamaas iyo Israa'iil ee lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalka Gaza taasi oo qayb ka ah qorshaha madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. haddaba ma dhaba in haddii heshiiskaasi la gaari waayo cawaaqibku ugu xun uu ku dhici doono Israa'iil? warbixin arrimahan la xiriirta waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga Nimcaati Macade. maqaal lagu daabacay wargeyska Israa'iil ka soo baxay Maarif General Isxaaq Bariig oo hore uga tirsanaa ciidamada kaydka ee Israa'iil ayaa waxa uu ka digay in Israa'iil ay ku sugan tahay isgoys adag oo go'doomin kara masiirkeeda siyaasadeed iyo kanaamni. waxa uu sheegay in haddii aan la gaarin heshiis lala galo xarakada iska caabinta islaamiga ah ee Xamaas ay cawaaqib aad u adag ku yeelan doonto Tel Aviv. Xamaas ayaa ka jawaabtay qorshihii uu soo bandhigay madaxweyne Donald Trump balse waxa ay diiday qaabka qorshaha iyadoo muujisay diyaar u ahaanshaha wada hadal taasi oo muujinaysa sida uu maqaalku qabo kalsoonida Xamaas ee awoodeeda ciidan iyo shabakadaheeda godadka dhulka hoostiisa ee ballaaran iyadoo aan ka baqaynin go'aan ciidan oo Israa'iil ay qaadato. qiimaha dhaca hanjabaadaha Bariig waxa uu sheegay in hanjabaadihii Trump iyo sidoo kale wasiirka difaaca Israel Katz ee ahaa in albaabada naarta la furayo haddii Xamaas aysan ka bixin Gaza ay noqdeen kuwo aan macno lahayn kadib 2 sano oo dagaal uu soo bandhigtay kartida xadidan ee ciidamada Israa'iil iyo walaanta ay ku fulin karaan balaqaadyadii guul ay marar badan sheegtaan. waxa uu tilmaamay in sheegashada taliyaha ciidamada ay ahayn 60% shabakada dhuumaha Gaza la burburiyay aysan run ahayn isagoo sheegay in wax ka yar ilaa 20% haatan la burburiyay halka khasaaraha Xamaasna lagu qiyaasay si xad dhaaf ah hase yeeshee tirada
tirada dagaalyahanada dhintay aanay dhaafin ilaa 10,000 kuwaasi oo si degdeg ah loogu bedelay dagaalamayaal cusub. Brig waxa uu sheegay in saraakiisha sare ee ciidamada Israel ay qirteen inaysan awoodin inay jaraan godadka dhulka hoostiisa ee hoos mara dhidibka Philadelphia ee Saalixdiin, kuwaasi oo suurtagelinaya in hub si joogto ah uga soo galo Gaza dhinaca Sinai. waxaana intaasi ku daray in diyaarada aan duuliye lahayn ay maalin kasta ka soo galaan gacanka Masar iyagoo sida rasaas iyo hub xilli ciidanka Israel aysan waxba ka qaban karin. wasiirka arrimaha dibadda Israel Gideon Saar oo ku hadlayay magaca ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xukuumaddu aysan la yaabin dalabkii Trump ee in la joojiyo duqeynta Gaza isla markaana la bilaabo ama la galo wada hadal. laakiin General Brig waxa uu tan ku sifeeyay isku day cusub oo Netanyahu ku marin habaabinayo dadweynaha reer Israel isagoo ku tilmaamay dabeecadiisa dagaalka mid boor isku qarin ah. Brig waxa uu sheegay in hadalada Netanyahu ee ku saabsan in loo bedelo wajiga bariga dhexe si wanaagsan aysan ka turjumaynin xaqiiqada maadaama gobolka uu ku jiro isbedel degdeg ah oo ka dhana Israel iyadoo oo meesha ay ka sii baxayso sabcadii caalamiga ahayd ee Israel iyo hoos u dhac ku yimid adeegyada muhiimka ah sida amniga, dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo xiriirka dibadda. General Brig waxa uu qormadiisa ku leeyahay Hamas waxay hanjabaadaha Israel ku tilmaamtay ay ciyayo oo socodkii gabay iyadoo xustay 3 qodob oo asaasi ah oo ay ku diiday qorshaha Trump inay diiday dalabkii oo ka dhigista ama kala dirista garabkeeda military inay ka soo horjeesatay ciidan caalami ah oo la keenayo Gaza taasi oo igu yeertay kooxda gumaysi la qariyay iyo inay diiday in maxaabiista dhan hal mar la sii daayo maadaama ay tahay kaarka kaliya ay ku gaari karto heshiis. Brig waxa uu aaminsan yahay in adeega Israel iyo diidmada tanaasulka ay keeni doonto fashilka wada hadalada iyo sii socoshada dagaalka taasi oo Israel ka dhigi doonta cidda khasaaraha ugu weyn uu ku dhaco. waxa uu ka digay in sii socoshada dagaalka ay caqabad ku tahay soo celinta maxaabiista isla markaana ay keeni doonto dhimasho dhaawac badan oo askarta Israel soo gaartay iyadoo aan xal ciidan la helin. sida uu sheegay Hamas ayaa dagaalka ka heli doonta faa'iidooyin istiraatiiji ah oo aan horey loo arag sida go'doon caalami ah oo Israel ay gasho xiriirka dalalka Carabta ay heshiisyada nabadeed ee la galay oo xumaada joojinta in dalal cusub ay xiriir la sameystaan Israel iyo burburka hay'adaha nidaamka Israel ku dhici doona. Brig waxa uu sheegay in xiriirka cusub ee u dhaxeeya Mareykanka, Qatar iyo Turkiga uu yahay qatar cusub oo ku soo korortay Israel isagoo Hussein Trump uu tilmaamay suurtagalnimada ah in Turkiga dib loogu soo celiyo barnaamijka diyaaradaha dagaalka F-35 iyo in lala galo heshiis difaac wadajir ah Qatar. taasi oo sida uu qabo macnaheedu yahay in weerar lagu qaado Qatar uu la mid yahay weerar lagu qaaday Mareykanka. tani ayuu yiri waxa ay muujinaysaa in wareegga Qatarta uu ku soo dhawaanayo Israel iyadoo aysan u dhisnayn awood dhab ah oo ay ku wajahdo. Brig waxa uu ku taliyay in xaaladan laga baxo iyadoo la gaarayo heshiis siyaasadeed oo degdeg ah iyo joojinta dagaalka lana bilaabayo wada hadallo dhab ah oo tanaasul labada dhinacba ah. kadib markii Hamas ay soo dirtay jawaabteeda, Trump waxa uu ku amray in la joojiyo duqeynta Gaza lana galo wada xaajooda. talaabo uu Brig ku sheegay in la qaadi karay bilo ka hor si loo badbaadiyo in Israel ay khasaare bini'aadantinimo la kulanto iyo mid siyaasadeed. waxaana uu ku adkeeyay in guusha wada hadalada ay ku xidhnaan doonto kormeer adag oo Mareykanka ka yimaada kana hortagay Netanyahu mar kale calaqaladeeyo isaga oo ka digay in fashilka wadada siyaasadeed uu siin doono Hamas fursad ay kaga xoog badnaato bilaha soo socda sidii ay markii hore ahayd. waxa uu ku soo gabagabeeyay maqaalkiisa in habka kaliya ee lagu badbaadin karo Israel haatan uu yahay in la qabto doorasho laga soo hormariyo xilligeeda oo lagu dhiso xukuumad cusub isagoo carabka ku adkeeyay in joogitaanka Netanyahu oo hor istaagayo heshiis kasta oo dhameystiran oo la gaaro isla markaana uu Israel ku soo jeedayo qatar gudaheeda ah oo burburka uu ugu horeeyo. Nimcati Macade.